calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada channelkeena Barjaan. Maanta waxaan iisoo gudbin doonaa sida usoo download gareysan kartaa thumbnail oo qof leeyahay, macnaha oo thumbnail aad ka heshay oo YouTube kala saaran, sidee aad download usoo dhahan kartaa. Okay, waxaan ku siin doonaa qaabka ugu fudud badanaa YouTubers kama hadlaan sida loo soo download gareysto thumbnail. Maanta aniga ayaan iisoo gudbin doonaa insha Allah. Daawasho wacan. Marka ugu horeysa waxaa soo furnaysaa ama soo dejisanaysaa appkan lagu magacaabo thumbnail downloader. Waxaad ka heli kartaa Play Store-ka. Thumbnail downloader ayaa qoraysaa marka ugu horeyso step koowaad oo qaadi doonto waa YouTube-ka ayaa soo furnaysaa kow. Okay, thumbnail-ka u baahan tahay ayaa soo qaadanaysaa. Hadda anaga thumbnail-ka ka helo. Marka hadda aniga waxaan soo qaadanayaa oo thumbnail qurux badan. Okay, thumbnail qurux badan ba uma jeedo. Okay, thumbnail qurux badan iyo waxaas dhan hadda ma fiirinayo. Thumbnail-kan hadda kan ay u baahanahay ka soo qabo. Okay, waa ku dhufanaysaa. Okay, waxaa sameynaysaa share ayaa leedahay. Share markaad ahayd waxaad leedahay copy link. Okay, waad ka baxaysaa. Appka waa kana thumbnail downloader ayaa usoo laabanaysaa. Thumbnail downloader ayaa ku dhufanaysaa. Okay, barta searching-ka ayaa ku dhufanaysaa. Halkan ayaa paste ku leedahay. Okay, paste. Okay, geli. Okay, asiga ayaa kusoo qabanaya. Waa kana top player kana sawirkii. Marka sidee kusoo degsanaysaa? Just waa fududahay, waa ku dhufanaysaa. Halkaas hoose aad ujeedaan ayaa ku dhufanaysaa oo ku qoran tahay download. Okay, hadda uu ii degay. Hadda waan soo fiirinayaa. Waa kana. Waa kan sawirkii saa ujeedaan baa soo dejistay. Haddii video-gan ku cajab geliyay, like saar, subscribe saar haddaadan hore u saarin, comment kusoo dhiibo si dhiirigelin noo noqoto. Sidoo kale su'aasha doonto ayaan weydiin kartaa. Insha Allah tacaala waan kaga soo jawaabi doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.